kulan wanaagsan saaxiibayaal halkan waa Libero barta aan YouTube-ka ku leenahay kusoo dhawaada warbixin aan ku dul joogsan doono doorashada loo balansan yahay inay dalka Kenya ka qabsanto 9 bisha 8 ee sanadkan guud ahaan dalka Kenya waxaa loo diyaar garoobayaa doorashada laga soo dooran doono madaxweynaha xildhibaano senator wakiil haween iyo waliba wakiilka deegaanada 47 ismaamul ee dalka ka kooban yahay warbixintan waxaan si gaar ah diiradda ugu saari doonaa hadduu Allah awood leedmo gobolka waqooyi bari ee Soomaalida degto gaar ahaan ismaamulka Wajeer ahna ismaamulka nambarka 8 ee ismaamulada ka jira dalka Kenya Wajeer waxaa si weyn loogu dareemayaa ololaha siyaasadda 2022 ay musharaxiinta sameynayaan laga soo bilaabo kursiga barasabnimada ahna midka ugu muhiimsan kan xildhibaannimo midka haweenka midka senatarka ee aqalka sare dalka ee ismaamulada lagu matalo ilaa kuraasta wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulka ka jiro kursiga gafanaatoraha ahna midka ugu muhiimsan sidan hore u soo xusnay ee ismaamulka Wajeer ayaa waxaa doorashadan isu soo sharaxay 8 musharax kuwaasi oo mid kasto ayaga kamid ah rabo in isaga la doorto asagoo ku andacoonaya inuu yahay musharax ku haboon ee ay tahay inuu kursigaas hantiyo meesha lagu gaaro taariikhda 9 ee bisha 8 sideeda musharax ee mid kasta uu hanqaltaagay inuu hantiyo kursiga barasabnimo ee ismaamulka Wajeer ayaan waxyaabaha ay doonayaan inay qabtaan halkan idin kula wadaagi doonaa maanta waxaan diiradda saari doonaa laba kamid ah musharaxiintaas oo ay kaliyeyn Axmed Cabdullaahi Jiir iyo walaal Maxamed Cabdi Maxamuud aan ku horeyna musharax Maxamed Cabdi Maxamuud waxa uu kursigan hantiyay doorashadii hore ee 2017 taasi oo uu kaga guuleystay ninkii ugu horeeyay ee barasab ka noqday Wajeer Axmed Cabdullaahi Jiir Maxamed Cabdi Maxamuud inta uu kursigaas ku fadhiyay waxa dawladdiisa lagu eedeeyay inay ahayd mid aad u musuqmaasuq badan taasi oo uu dambeeyay sababtay inuu kursiga banaanka ka joogo muddo 9 bilood ah kadib markii ay mid kamid ah maxkamadaha dalka Kenya ka jira ay ku xukuntay sidaasi sidoo kale qaar badan oo shacabka ayaa u arkay in dawladda Maxamed Cabdi wax badan la hartay wax kasta oo horumar ah oo ka jiray ismaamulka Wajeer taasi uu soo bilaabay Axmed Jiir laakiin asaga waa Maxamed Cabdi dhankiisa waa uu beeniyay arrimahaas waxa uu ku sheegay in siyaasiyiin ay dabada ka riixayaan shaqooyinka musuqmaasuq ayna iyaga ka dambeeyaan musharaxa labaad waa Axmed Cabdullaahi Jiir oo soo noqday barasabkii Wajeer sanadii 2013 ilaa 2017 Jiir ayaa markiisa labaad doonayay inuu maamulo Wajeer isaga inta badan ku dooday inuu soo celin doono rajada reer Wajeer ee ah ismaamul horumarsan ee ay lumisay dawladdan haatan jirto oo ilaalin doona lacagaha shacabka loogu talagalay Jiir ayaa intuu kursiga hayay ka fuliyay magaalada Wajeer horumarina kuwaasi oo ay kamid tahay dhisidda waddo laami ah oo markii ugu horeysay Wajeer laga hirgeliyay dhanka kale dadka dhaliilsan siyaasadda Jiir ayaa ku tilmaama inuu yahay dictator aan ogoleyn wada tashi dhankiisa waa uu beeniyay sheekooyinkaas waxa uu sheegay in dawladda ay u baahan tahay adeeg loona baahan yahay in si wanaagsan wax loo qabto ee aysan ahayn insha Allah hadduu Allah awood leedmo warbixino kale ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa labada musharax ee aad maanta sheekadooda ka bogateen halkaas ay noo joogeen yaad isleedahay adiga waa uu qalmaa labada musharax ee aan maanta soo xusnay kursiga barasabnimada ee Wajeer County